maanta waxaan ku soo qaadanaynaa waxa loo yaqaan criticism ka la yiraahdo ama critique waxa la yiraahdo oo ah inaad qofka naqdido inaad qofka wax ka sheegto inaad qofka akhtaadiisa iyo qaladaadka uu sameeyay aad soo saarto waxa la naqdiga waxa la yiraahdaa waa 10 46 waa qodob aad u muhiim ah naqdiga waxa la yiraahdaa muhiimad gaar u leeyahay waxa laha muhiimadiisa keensanaya waxa kow ka noqonaya marka naqdiga la helo waxa imanaya in si yaro fudud markiiba loo ogaado qaladaadka hadii meesha naqdi jiro naqdigaas wuxuu noqon karaa illa naqdiyo xukuumadda laftigeeda wuxuu noqon karaa illa naqdiyo ururada laftigooda wuxuu noqon karaa in qofka laftigiisa shakhsi ahaan la naqdiyo meelo badan buu naqdigu u galaya oo u baahan in qaladaadka meelaha ka dhaca la saxo haddaba dawada naqdigu waa muhiim in la helo waxaanu muhiim u yahay naqdiga marka uu jiro waxa la ogaanaya qaladaadkii dhacayba markiiba la ogaanaya hadii la kasan naqdi aanu jirin hadii aan runtii qaladaadka dhacay aan la isu sheegin maxaa imanaya in qaladaadku ay noqdaan runtii ay kobcaan ay runtii weynaadaan oo runtii aan la ogaanin muddo kooban aan lagu ogaanin kadibna mar dambe la ogaado qaladaadkii oo farabatay saxitaanku marka uu adkaado daawayn qaladaadka la saxo oo la isu sheego runtii waa qodob aad u muhiim ah muhiim u yahay waxa weeyaan marka uu naqdigu jiro wax la isu sheegayo waxa imanaya qofku inuu ka qayb qaato horumarka qayb qaadan kari meesid hadii aanad wixii aad u aragto dhaliil aanad sheegin kama qayb qaadan kartid marka dhaliisha in la sheego haday dhaliil shakhsiyaad tahay haday dhaliil runtii naqad urur noqoto haday dhaliil xukuumadeed noqoto intuu waa mid loo baahan yahay waxa kale oo muhiim ah u noqonaysa dhaliisha in la isu sheego waxa keensanaysa in la isu naseexayo naseexada ay diintanu aad uga hadashay ay waliba ay ku tilmaamtay tiirarka islaamka inay kamid tahay inay muslimiintu isu naseexayaan wax kala maaha waa runta la isu sheego waa in dhaliisha la isu sheego daawad in dhaliisha la isu sheego waa muhiim waxa ay u tahay waxa soo hoos galaysa al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar xumaanta in la iskaga digo la isu sheego la isu saxo wanaagiina runtii la isfaro ayay keensanaysaa marka daawada waa qodob muhiim ah in dhaliisha la isu sheego in la isnaqdiyo wala baahan laakiin wax la iraahdaa naqdigu waa laba qaybood ama dhaliisha marka la sheegayo laba mid bay noqon kartaa mar dhaliisha aad sheegaysaa waxay noqonaysaa dhaliil wax runtii dhisaysa noqonaysaa oo wax hagaajinaysa noqonaysaa oo runtii ummadda horumar horseedaysa noqonaysaa marna dhaliisha waxay noqon kartaa mid wax dumisa oo wax baabisa oo run ahaantii dhibta ay keensanaysaa ay aad u weynaato daawada maanta waxaan rabnaa si gaar ah inaan uga hadalno dhaliisha wax dhisaysa dhaliisha horumarka keenaysa waatee maxaa loo baahan yahay qof markuu rabo dhaliil inuu sheego waa maxay qodobada looga baahan yahay waa maxay mabaadida looga baahan yahay ee la rabo qofkaas inuu raaco dawa qodobkeena koowaad baan ku bilaaweynaa hadii aad rabto inaad dhaliil sheegto waliba hadii aad rabto dhaliisha aad sheegaysa ama qof u sheeg ama xukuumad u sheeg ama urur u sheeg hadii aad rabto dhaliisha aad sheegaysa inay noqoto dhaliil wax dhista oo wax aan dumin dhaliil wax hagaajisa oo wax toosiso hadii aad rabto mabaadida waa inaad ku dhaqantaa mabda'a koowaad waxa weeyaan dhaliisha inta aad sheegin waa inaad hubisaa dhaliishan ma jirtaa mise ma jirto waa inaad xaqiijisaa in dhaliishan ay jirto qaladaadkan aad leedahay way jiraan waa inaad marka ugu horeyso aad hubisaa qaladaadkan inay jiraan daawada qaladaadka adigoo aan hubin oon xaqiijin jiritaankooda cidna ha u sheegin arrintaasi khatar bay leedahay khatarteeda leedahay waxay noqonaysaa been abuurshay noqonaysaa waxa laga yaabaa dhaliisha adiga aad maqashay ee aanad hubin hadii aad iska sheegto inay been noqoto laga yaabaa taasina arrin adduunyo aakhiraba khatar ku ah ay noqonaysaa maanta waxaad aad u arkaysaa markaan dalkeena ka sheekeynayno inay aad u fududahay qofka dhaliisha inuu sheego isagoo aan xaqiijin isagoo aan ogaanin ma runba mise waa been ayuu iska sheegayaa bale marka qaar waxa laga yaabaa inay fududahay inuu xaqiijiyo laakiin si aanu rabin inuu daba garo bale waxaad arkaysaa maanta marka aad eegto meelaha la fadhiisto oo dhan in dhaliilo badan la sheegayo ama dad hala dhaliilo ama mas'uuliin hala dhaliilo ama cid kale hala dhaliilo laakiin se la isma weydiiyo dhaliishaasi ma xaqiiqo jirtaa mise ma aha
arrintaasi khatarteeda ayay leedahay khatarna waxa ay ku leedahay dhaliishu hadday been noqoto haddii ay been abuurad noqoto adigana kuma fiicna shakhsi ahaan aakhiradaana uma fiicna marka daawada qodobka koowaad waxa weeyaan dhaliisha haddii aad rabto dhaliil inaad sheegto oo qof u sheegayso waxa muhiim ah dhaliisha inta aan sheegin waa inaad xaqiijisaa dhaliishaasi ma jirtaa mise ma jirto qodobka labaad ee daawada waxa weeyaan ama mabda labaad haddii aad rabto dhaliil sax ah inaad sheegto haddii aad rabto inaad dhaliil sheegto wax runtii muxuu ahay hagaajisa wax weyn qodobka labaad waa inaad raacdaa istiraatiijiyad sax ah oo dhaliisha aad ku sheegto waxa jirta inta badan marka aan rabo inaan wax sameeyo qorshaan sameeyaa istiraatiijiyad baan dejiyaa wax kasta oo qofku qabanayo su'aalaad isweydiisa waxa kamid ah markaad wax sameynayso maxaan waxa u sameynaya maxaa maslaxada igu jira sidee baan u sameeyaa maxaa ka soo bixi kara su'aalahaas oo dhan baad isweydiinaysaa markaad wax qabanayso hadba dawada waxa laga rabaa marka aad dhaliil sheegaysana su'aalaha inaad isweydiisaa laga rabaa inaad fakirtaa laga rabaa inaad dhaliisha aan sheegin inaad isweydiiso dhaliishan maxaan u sheegayaa maxaan ka faa'iidayaa dhaliisha inaan sheego qofkan u sheegay muxuu ka faa'iidayaa maxaa runtii laga yaabaa maslaxad ee ku jirta dhaliisha in la sheego dhaliisha sidee baan u sheegaa su'aalaha waan isweydiisaa sababtu maxay tahay sababtu waxa ay tahay dhaliisha haddaad ka fikirto inta aanad sheegin waxa imanaysaa dhaliisha inaad intaad eegto ay kugu soo dhacda laga yaabaa dhaliishan uma baahna imanka inaad sheegtaba waxa kugu soo dhici kartaba dhaliishan maslaxadba ma xaqiijinayso maxaad u sheegay maxaad qofka ugu sheegaysaa waxa kugu soo dhacaysaa usluubka qofka ugu sheegay dhaliisha laakiin haddii aanad ka fakirin dhaliisha sheegitaankeeda sidaad u sheegayso maxaa imanaysaa inaad adigoo runtii kacsan dhaliisha iska sheegto marka dhaliishaasi maxay noqonaysaa mid isu bedesha cay iyo ceebeen bay noqonaysaa sababtoo kama fakirin dhaliishan iyo maxay keensan kartaa maxaa maslaxadeeda ku jira sidee baan u sheegaa su'aalahaas maad weydiinin saadaradeed waxa la iraahdaa haddii aad rabto dhaliishadu inay noqoto mid wax runtii dhisaysa haddaad rabto waa inaad intaanad dhaliisha aad sheegin aad isweydiisaa istiraatiijiyadaad u sheegayso dhaliisha oo su'aalahaas oo dhan aad ka jawaabtaa daawada waxa la iraahdaa oo qawaaniinta maanta caalamka ka hadasha saxaafaddu waxa iraahdaan qofka saxafiga markuu dhaliil sheegayo waxa la ugu muhiimsan laga rabo waxa kamid ah waxa loo yaqaan niyad wanaag niyadaadu waa inay wanaagsantahay marka dhaliisha aad sheegayso haddii aanay niyadaadu wanaagsanayn oo xumaane ay ku jirto oo xaqd iyo xasad ay ku jiraan waxa laga yaabaa qaanuunka hortiisa in kiis lagu helo waxa la tilmaamo qof inaan niyad wanaag aan ku jirin waxa kamid ah qofka baaritaan fara badan aan sameeynin qofka saxafiga kiiska aan baarin oo markiiba soo dhiga oo markiiba sheega waxa tilmaamaysa niyadiisu inaan wanaagsanayn wana kiisaska inta badan lagu helo saxaafada caalamka marka runtii maxkamadda la horgeeyo waxa kaloo kamid ah qawaaniinta caalamiga ay dhigayaan marka laga sheekeynayo xorriyadda saxaafada ninka saxafiga markuu dhaliil sheegayo waa in dhaliisha uu sheegaya ay maslaxad ku jirtaa maslaxad caamo ummaddu waa inay ku jirtaa haddii aanay maslaxad ku jirin dhaliisha inaad sheegto waxa lagu leeyahay dhaliisha laftigeeduna dambi bay isku ka rogaysaa dambi la noqonaysa sababtu waa maxay dhaliisha marka aad sheegayso inaad ka fakirtaa maxaa maslaxada qaranka ugu jira ma inaad sheego dhaliisha haddii maslaxad ba aanay ku jirin inaad dhaliisha aad sheegto hebel baa waxa sameeyay haddaanay dadku wax alla wax ka faa'iideen aanay jirin maxay noqonaysaa ceebeen bay soo bedelaysaa kiis gaar ah lagu qaaday soo bedelaysaa bala waxa qawaaniinta caalamku ay dhigayaan ee saxaafadda ka sheekeeya qawaaniinta saxaafaddu mabda'aadka muhiimka ah ee ah dhaliisha marka aad sheegayso waxa muhiim ah ninka saxafiga inuu hubiyo dhaliishooda jirto xaqiiqo ay tahay shaki aanay lahayn arrimahaas oo dhan maxay tilmaamayaan arrimahaas oo dhan waxay tilmaamayaan qodobkeena labaad bay tilmaamayaan oo oranaya dhaliisha inta aanad sheegin ka fiirso ka fakir istiraatiijiyada saxda ah ee aad ku gudbinayso waanad maxay ka baaran degtaa dawadee mabda'a saddexaad ama qodobka saddexaad waxa uu yahay marka dhaliisha la sheegayo waa inaad runtii awooddaada waa inaad saartaa xalka waa inaad saartaa mushkiliya awoodda ha saarin qaradka ha saarin qaradkan dhacayun ha bomboonine laakiinse awoodda waxaad saartaa maskaxda waxaad saartaa war xalku waa maxay dawada qodobkaasi waa muhiim sababtu waxay tahay marka aynu rabno inaan wax dhisno
marka aad rabto naqdiga aynu sheegnaa inuu noqdo naqdi wax dhisaa waa inaad ka fikirtaa xalka waa inaad ka fikirtaa laakiin awoodda aanad saarin mushkiladda iyo qaladka aanad awoodda saarin tusaale aan ku siiyo waxa dhacay kaaga yaraaba imtixaankii ku qaldamay oo uu ku dhacay imtixaankii qalad weyn uu sameeyay markaad rabto kaaga yara inaad qaladka u sheegto tiraado waad qaldanta maxaa laga rabaa kaliya lama rabo inaad tiraado waa dhacday saaqid baad lama rabo haddaad sidaa tiraado awoodda maxaad saartay qaladkii iyo mushkiladii baad awoodda saartay xalka lagu leeyahay awoodda saar oo maxaad tiraahdaa waxaad tiraahdaa aaba waxa weeyaan imtixaanka marka la galayo sida iyo sidaas loo gala imtixaanka marka la galayo waxa la rabaa inaad diyaariso oo u fadhiisato waxa saad wax u akhrido imtixaanka marka la galayo waxa samee marka qofkii yara dhashay waxaad u sheegaysaa xalkii baad u sheegaysaa mushkiladda uu already way dhacday ka gudub baa lagu leeyahay mushkiladda mustaqbalka ka sheekee si aanu ilmihi qof mar kale u dhacin waa mustaqbalka ka sheekaysa oo u sheegtaa mustaqbalka sideeba imtixaanka u galaya sideeba saxa marka u sheeg laakiin wixii hore u dhacay ha ugu soo celcelin dawada waxa la mid ah marka aad xisbi siyaasiya oo raba ummadan inuu runtii wax ka bedelo maxaa laga rabaa inaanad mushkiladda iyo qaladka iyo dhaliisha oo kaliya aanad awood saarin waa inaad markaad wax dhaliilayso waa inaad sheegtay xalka waa inaad sheegtaa marka aad leedahay biyo la'aan baa maanta Hargeysa ka jirta xalka waa inaad raacisaa taasi maxay keensanaysaa inuu dhaliishaadu ay noqoto mid wax dhista taasi waxay keensanaysaa dhaliishaada inay ka faa'iideystaan cid rabta inay wax dhistaa laakiin kaliya awoodda haddaad saarto dhaliisha oo wax kasta uu dhaliishun aad sheegto oo mushkiladda uu aad sheegto an xalba aanad keenin xulusha aanad ka hadlin problem iskun aad awoodda saarto mushkiladda maxay noqonaysaa adiga laftiga berito marka aad timaado lamidu ma noqonaysaa marka dawada maxaa laga rabaa oo qodobkan uu tilmaamaya qodobkan daawada wuxuu tilmaamayaa qodobkii saddexaad marka aad rabto inaad dhaliishaada noqoto mid wax dhista awoodda waa inaad saarto xalka iyo sida lagu helayo laakiin aanad awoodda saarin mushkiladda iyo qaladka awoodda waa inaad saarto mustaqbalka iyo in hore loo socdo laakiin wixii la soo dhaafay ee dhacay mushkiladii dhacday qaladkii dhacay awoodda ha saarin ha ku celcelin ee ka gudub baa lagu leeyahay qodobka afraad wuxuu yahay ama mabda afraad ee hadii aad rabto runtii dhaliishaadu inay wax dhiso loo baahan yahay daawade waa inaad runtii ixtiraamtaa qofkan runtii muxuu ahaay aad dhaliisha u sheegayso shakhsiyadiisa waa inaad ixtiraamtaa jiritaankiisa waa inaad ixtiraamtaa waa inaad dhaliisha aanay noqon dhaliil qofka aad ku dhaliilayso shakhsiyadiisa waxa daawada lagu leeyahay dhaliishaadu hadda rabto inay sax noqoto qofka umuriisa khaaska dhaliisha ha gelinin shakhsiyadiisa gaarka ha dhaliilin laakiin waxa dhaliisha dhacdada iyo fikirka dhaliil laba kala saar baa lagu leeyahay daawada waxaan dhacay qaladkan dhacay iyo qofka kala saar qaladka dhacay waad dhaliili kartaa wax waad ka sheegi kartaa laakiin qofka waxba kama sheegi kartid qofka waxa la u gaarka waxba kama sheegi kartid waana arimaha maanta aadka u qaldan ee wadankeena ka dhaca oo waxaad arkaysaa qof ma kala dhaliilayo lama kala saarayo qofkan iyo problemku sameeyay lama kala saarayo lama kala saarayo qofkan iyo fikirkii uu keenay ee qaldana lama kala saarayo lama kala saarayo qofkan iyo qaladka uu ku jiro qaladka waa dhaliilaysaa waad u sheegaysaa sida saxda u sheegaysaa laakiin qofku ixtiraam uu ka mudan yahay maamus buu ka mudan yahay marka waa inaad iska ilaalisaa hadii aad qofkii siyaasiga ka soo qaad wasiir baad dhaliilaysaa hadda wasiirkaasi waxa weeyaan shakhsiyadiisu waa nin noocaas oo isagii toos u abaarto dhaliil ma sheegin isagii baad caayda marka maxaa laga rabaa wax qabadkiisa ka hadal waxa qalad uu sameeyay ka hadal waa loo baahayaa waa in la saxaa laakiin isaga iyo shakhsiyadiisa iyo waxyaalaha u gaarka ah isaga khaaska u ah inta mid wax ka sheegi karimaysid oo waa wax systemku ilaaliyay shuruucda ilaalisay shariicada islaamku si gaar ah u ilaalisay qof kasta sumcadiisa iyo jiritaankiisa iyo shakhsiyadiisa wala ilaali laakiin qaladka uu ku kacayo ee shaqadiisa ku saabsan waxbaad ka sheegi kartaa dawa qodobkan waxa la mid ah qofka hadii aad marka dhaliishii isaga aad toos u abarto shakhsiyadiisa aad abarto qofku isdifaacaya qofka dhaliisha ma qaadanayo marka qofkii ku tiraado ahmaq baad jaahil baad da isaga baad abarto laakiin ficilku sameeyay hadaa tiraado ficil ka dhacay aqoon daray ahayd ama si loo baahnaa looma qaban ficilkii baad ka hadashay marka daawada labada waa inaad kala saartayo shakhsiga iyo dhibaatada iyo qaladka ku galay waa inaad kala saartaa qodobka shanaad ee daawada wuxuu yahay ama mabda shanaad wuxuu yahay kalimaadka adeegsanaysa waa inay noqdaan kalimaad sax ah
كلمات كهبر وين نقدان كلمات runtii aad u fiican oo qofka soo jiidanaya waana ku cabirtaa dhaliishaada hadii qofka aad dhaliilayso laakiin kalimaadka adeegsanaysa ay noqdaan kalimaad aad u xadjir ah kalimaad aad adag oo runtii aan fiicnaan haday yihiin hatta dhaliishaadu haday fiican tahay qof ma qaadanayo marka daawada maxaa laga rabaa kalimaadka adeegsanaysa waa inay noqdaan kalimaad ku haboon dhaliisha ku haboon kalimaad qofka soo jeedanaya waa inay noqdaan hadii kale qofku runtii wuxuu isku dayay siga lafdiisuna inuu arinta ka jawaabo oo si kale uga jawaabo dawa qodobka muxaahay mabda lixaadi waxa weeyaan ee runtii loo baahay inaad la timaado hadaa rabto dhaliishadu inay wax dhisto waxa weeyaan dhaliisha marka aad sheegayso waa inaad wanaaga qofkana waa inaad sheegtaa qof kasta wanaag iyo xumaanba waa leeyahay hadii aad awoodda saarto kaliya qofka xumaantiisa inaad ka sheekayso xumaantiisa inaad baarbaaro qaladaadkiisa inaad dabar gasho macnaheedu waa maxay wax dhisimaysid dhaliishadu wax dhismayso dhaliishadu waxay awoodda saartay qofka xumaantiisa iyo qaladaadkiisa daawada maxaa laga rabaa marka aad rabto dhaliishadu inay wax dhisto waa in qofka wanaagiisa aad sheegtaa qofka wanaagiisa waa inaad ka soo sheekaysaa kadib marka dhaliisha waad u raacin kartaa kadib dhaliishiisa waad sheegi kartaayo waxaas ayaad ku qaldan tahay waxaas u baahan inaad saxdo waad oran kartaa qofku muxuu dareemayaa waqtigaas qofka markaad wanaagiisa sheegto wax qabadkiisa sheegto muxuu dareemayaa inaad runtii miisaan fiican saartay wuxuu dareemayaa inaad u ictiraaftay wax qabadkiisa iyo wanaagiisa laakiin marka aad dhalisho kaliya ka hadasho muxuu arkayaa inaad tahay qof xaasida oo xaqda uu ku jiro oo xumaantiisa kaliya raadinay dawad qodob kale halka raacaya oo qodobkaasi waxa weeyaan marka aad rabto inaad wax sheegto cadaalad baa lagaaga fadhiya saadara cadaaladdu maxay keensanaysaa insaafku muxuu keensanayaa qofka wanaagiisa iyo xumaantiisaba inaad labadaba soo qaadato labadayba inaad sheegto weeyaan cadaaladdu saasi ku jirta cadaaladdu kuma jirto oo kaliya qofka inaad ku daba gasho xumaantiisa oo kaliya qofka inaad ku daba gasho waxyaalaha qaladaadku sameeynayo oo wanaagiisa ka tagto qof aan labada lahayn ma jiro qofka sa wanaagi qaladaadba waa uu leeyahay hadii aad markaa rabto dhalisha inaad saxdo wanaagiisana waa inaad sheegtaa kadib qaladaadkiisana aad sheegtaa soo qofkaas uu qaato لو قضب كاسي waxa weyn waa kii xad qodobka toddobaad waxa weeyaan waa inaad marka aad rabto dhalisha inaad sheegto waa inaad qofkan u sheegtaa maxaad ka rabtaa dhalisha hadda iska sheegto oo wax caama aad ku sheegto oo qofkan aanu ogeyn waxaad ka rabto mushkilad bay noqonaysaa tusaalada wada aan ku siiyo qof shaqaalaha ka tirsan ayaa shaqadiisu xunta markaas waxa tiri shaqadaadu way xunta qofka markaad ku shaqadaada way xunta waa dhalishay laakiin qofkan uma sheegin maxaad ka rabtaa qofkan ma garanayo shaqadiisu halkay ka xunta marka aad u sheegto shaqada halku ku xun yahay qof markaas isku day inuu isbedelo inuu hagaajiyo marka aad tiraado shaqadaadu waxay ku xun tahay waxa ma qabatid qof muxuu isku dayaa wixii inuu hagaajiyo laakiin si caam ah hadaa u tiraado shaqadaadu way xunta maxay imanaya inuu naqdigaagu noqdo ama dhaliishadu waxay noqonaysaa midaan wax dhisay saadar daawada maxaa laga rabaa hadii aad rabto dhaliishadu inay wax dhisto waa inaad qofka u sheegtaa maxaad ka rabtaa waa inaad tiraahdaa waxa laga rabaa shaqaale waxa inaad qabato waxa laga rabaa inaad dadka sida ula dhaqanto waxa laga rabaa wax qof marka ma ku garto waxa laga rabo wuxuu isku dayaa inuu hagaajiyo sida daraadada daawada waxa laga rabaa hadii aad dhaliil sheegayso dhaliishadu ya caam noqon qofkii baad rabtaa inaad dhaliishto markaas waxaad qofkii ku sheegaysaa wax runtii aan la taaban karin oo caam ah oo la garan karin talo muxuu qofkaasi sameeyay marka maxaa laga rabaa qofka marka dhaliso dhaliil xadidan oo toos ah oo la taaban karo oo ko iyo laba ah oo qofku fahmi karo waa inaad u sheegtaa markaas maxay imanaysaa qofku inuu israa'isa sax oo dhalish lagu sheegay isa sax laakiin hadaad wax caam sheegto shaqa qof fiican ma tihid iyo shaqaale xun baa tahay ma shaqaysatid kalimaadka noocaasa qofku ma fahmayo maxaa ka qaldan soo marka uu fahmo qofku waxa ka qaldan waa inuu xadidaa dawad qodobka waxa raacaya oo qodobka 8aad dhaliisha hadaad sheegayso rabto dhaliishadu inay wax dhisto waa inaad ku runtii beegtaa waqtiga ku haboon iyo meesha ku haboon waqtiga ku haboon waa inaad u sheegtaa qofka hadii qofku waqti aanu diyaar u ahayn waxa jira qofku waqti aanu dhaliisha diyaar u ahayn qofku markuu kala kacsan yahay markuu misaajkiisu aanu fiicnayn marba runtii dhibaato gaar ah haysataa hadaa dhaliisha waqtiga ku beegto qofku ku dhageysan maayo laakiin waqti qofku soo jeedo oo dhaliisha qaadan karo oo wax maqli karo hadaa dhaliisha ku beegto oo qaadanaya qofkii oo careysan hadaa dhaliisha ku beegto oo runtii dhaliilo sheegto maxaa imanaya inuu soo cadhoodo marka maxaa laga rabaa daawada dhaliishada waqti ku haboon ku beeg wax kale daawada laga rabaa meesha ku haboon waa qofka dhaliisha ugu sheegtaa hadii aad rabto qofkii dhaliil inaad u sheegto oo isagoo umad dhex fadhiya u sheegto miyuu qaadanaya dhaliisha waa maya
sababtoo maxay noqonaysaa faadixad bay noqonaysaa marka maxaa laga rabaa waa inaad la eegtaa dhalisha aad sheegayso meesha ku haboon iyo waqtiga ku haboonba waa inaad ku eegtaa marka qaar baa loo baahay si public dhalisha inaad u sheegto oo ummaddu ay ogaato marka qaar baa loo baahay taalifdigeeda markaas waa inaad eegtaa waxa aad sheegayso dhalishan waqtiga ay ku haboontay waqtiba jira ay ku haboonaanayso qofka si gaar ah inaad ugu sheegto oo cid kale aanay ogeyn oo qofku isa sixi karo marka dawada waa inaad eegtaa dhalisha aad sheegaysaa waqtigeebay ku haboontay xageebana ku haboontay qodobka sagaalada arinta raacaya dawada wax weeyaan ee ah mabda isna aad u muhiim ah dhalisha marka aad sheegayso dhalisha waa inaad qofkan u sheegtaa aad u sheegayso inay raygaaga tahay raygaaguna khaladna uu noqon kara saxna uu noqon kara laakiin dhalisha had ka dhigin aad qofka u sheegayso inaad kaliya saxsantay anigu ma saxsan adiguna way qaldantahay sida yaani noqon sababtu maxay tahay haddaad qofka kale ka soo qaado markaas inuu qaldan yahay haddaad markaas iska soo qaado adiguna inaad saxsantahay adna dhalil ka qaadan mayso bani aadamkuna sidiisaba waxaad ogaataa mana wada saxsanaan karo mana wada qaldanaan karo qofku qaladna uu gali karaa saxna uu gali karaa raygaagu saxna uu noqon karaa qaranna uu noqon karaa raygaaguna labadaba uu ihtimaalaya qaranna uu noqon karaa saxna uu noqon karaa marka maaha qaladkan anigu waxaan sax u arkayay inaan kaaga dhigo inuu isagu sax yahay oo wax kale sax aan jirin qodobkaasi dawada waa muhiim oo qofka u sheegaysa markuu ogaado in raygaaga tahay uu soo dabcaya laakiin marka aad ku tirado wariya waxaas waa sidaas waana sax wuxuu aaminayaa is difaacaya sababtu waa maxay isagii baad runtii dhalisha u jeedisay kibriyaagiisii isla weyn iyo shakhsiyadiisa baad abaartay maskaxdiisa baad abaartay oo ka dhigaysa waxba inaanay garanin is difaacaya laakiin marka tan aniga sidaas ay la tahay adiga maxay kula tahay qof markaas uu ku sheegay dareenkiisa wuxuu ogaanayaa runtii inaanad waxaan ku qasbeen markaas uu sida saxda qaadanay dawa qodobka ugu dambeyn ku soo khatiminaa waxa weeyaan qodobkii 10aad ee marka aad dhalil aad sheegayso lagaaga baahay inaad raacdo waa inaad isku daydaa marka qaar inaad bal ka istaagto dhalisha qofka kale halku ka taagan yahay iska soo qaad qofka kale inaad tahayba sidaad u aragtaa dhalisha yaani qofkan aad dhalilayso ee wax ku sheegayso haddaad dhinaciisa istaagto sidiisa aad u fakirto wax laga waxin iska ka bedelaan qof baad dhalilaysa ka soo qaad shaqo xumaad ku dhalilaysa hal qofka sax muu qaban bal waxaad ka soo qaadaa inaad adigu laftigaagu meesha u tagay aad taagantay wax laga yaabaa marka inaad aragto duruufo gaar ah duruufo imika aanad arkayn oo laakiin isagu og yahay baa jira wax qabad la'aantiisa wax laga yaabaa duruufo inay ku kalifayaan in arrimo jiraan baa laga yaabaa inay wax la badan adiga ka qarsoon oo nadugan ay jiraan baa laga yaabaa adigu laakiin ma ogid laakiin haddaad meeshiisa kala fadhiisato oo iska soo qaado isaga inaad tahay markaas aad la dareemi kartaa dhibaatada isaga haysata marka daawada muxuu qodobka ku leeyahay wuxuu ku leeyahay dhalisha marka aad sheegayso waxaad iska soo qaadaa bal qofka kale halkuu taagan yahay inaad taaganta iska soo qaad sidoo u fakiray inaad u fakirayso ka soo qaad marka maxaad fahmi kartaa qofkan duruufo ku jira fahmi kartaa duruufo qofku ku jira hadaad marka fahantaan maxaa ku soo baxaya qofkan inuu macduur yahay baa ku soo baxaysa inuu cudurdaar haysa ku soo baxaysa kadib maxay manaya dhalishaada in dib ula noqoto dhici kartaba oo tiraahdo wallahi isaga iga saxsan sababtu waxay tahay duruufaha uu ku jira hadan ku jiri lahaa sida uu sameeyo ma amba sameey lahaa marka dawo qodobka muxuu tilmaamaya dhalisha marka aad sheegayso waa inaanad kaliya inaad saxsantay aanad iska soo qaadan oo qofka kalena markaas qaldaya وقدم مهمة وقدم بينتي داود وحن كسو كبجمين 10 كيلو المانتو لأن ليش إلا سوشي جوا مهم ليش واتن وحكو صحينه واتن خرومر من إنه كجهنم واتن ربنا إن حقيقة الاستهبسيو واتن ربنا نقطة إلا سوشي جوا لكن ستحسم حق بهانتهاي وسيلة صحة أو واحد لسه استعماله ما أنت قابب كان ليش يسكوش هيجينا رونهانتي وقابب آن في عنين وقابب كإنسان كان مركا قار qarankan runtii doomintiisa marka qaar waxay keensanayaan shakhsiyaad badan oo aad u wanaagsan in hoos u dhac badan uu ku imaado oo ay nacaanba wax qabadka dalka iyo dadka loo shaqeeyo bal marka qaar waxay keensanayaan in dadku isnacaan marka qaarna waxay keensanayaan in la kala tago tafarruq imaado ummadu ay isnacday keensanaysa bal marka qaar waxa laga yaabaa kelmad yar oo tiraahda inay keensato dagaal inay dhacaan dawada marka maxaa laga ka fadhiyaa kelmadda ka soo baxaysa ee dhalisha ay rabto inaad jeediso waa in niyad wanaag ka timaada xaqi xasad waa inaanu ku jirin runta waa inaad rabto inaad sheegto nasiixana waa inay ka tahay wasiilada ugu fiicanna waa inaad u raacdaa intaas ku soo koobayna wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh